kusoo dhawaada channelkeena kobcinta garaadka caruurta. waa walaashii Raxmi Xuseen. maanta gabar abaaya su'aal soo weydiisay, waxayna dhahday wiil oo 5 sano jiro oo i dhageysanaynin oo aad iska fudud carcararaya, dhibka ka batay, waxaan ka celiyo iyo waxaan u sheegaba qaadanaynin ayaa ii jooga, sidee baa ula dhaqmaa. marka abaaya waxaan ku leeyahay horta aad iyo aad u mahadsan tahay saa su-aasha ii soo weydiisay. abaaya ilaahay hanoo dejiyo caruurta dhammaan. intaa horta anaka aan fiirinin cunuga caruurta see yihiin isdhaqankooda, marka u horeyso waxaa fiican in anaka isfiirina sibaa ula dhaqanaa. marka haddii aad markuu cunuga dhib kugu sameeyoba aqaylisid ama aa usoo jeesatid ama aa ka xanaaqdid, taas waxay sii kordhinaysaa cunugan inuu dhibkiisa iyo fudeedkiisa iyo wixiisii dhibka uu sii bato. taas waxaa kasii daran intaa u sheegtid oo dhahdid kan dhibkii ka batay, wuu madax adag yahay, war ma maqlaayo, cunuga ku maqlaayo sii dhahdid, saasna way kasii daran tahay. taas markaas sii dhahdidna iidan dhibkuu sii. horta number 1 guriga wiilkaada ruul ma leeyahay, waxyaabo oo loo ogol yahay iyo waxaa loo ogoleen ma leeyahay. hadduu lahaan in loo sameeyo waa cunuga sharci oo ka tilaabsan karin waa inuu leeyahay. midda labaad, markuu sharcigaas uu jibiyo, xaafadda waxaa ugu dhex sameynaysaa meel oo markuu edadaro sameeyo ama uu ku dhageyso waayo ama amarkaada qaado waayo oo soo qabatid adooni la hadlin, adooni ku qaylin oo fariisisid. marka aad sameynaysid sharciga soo dejinaysana waa in aad la tashataa, aad u sheegtaa hadda kadib haddaad dhib samaysid meeshaan aad fariisanaysaa. daqiiqadahan waxaa u qabanaysaa 5 daqiiqo, cunug walba iyo sanadkuu jiro iyo daqiiqadaa u qabanaysaa. daqiiqadaas markuu soo dhamaysto kadib waa u sharxaysaa, waxaa dhahaysaa saasaa samaysay, waxaasna ma laga ogola xaafadeeno, saasaa dhahaysaa. haddii meel suuqa public uu kugu sameeyo daradii sidoo kale same thing aa sameynaysaa, waxaa meel aa fariisiinaysaa, 5 daqiiqa u qabanaysaa, adoona ku qayl, adoona waxba dhihin, dooro dhulku isku garaaca, dooro ha qayle maya adi hala hadlin, soo qabo fariisii. markaa fariisiisidna waxaa sameynaysaa 5 daqiiqa u qaadanay u qabanaysaa. markuu dhamaystana waa u sharxaysaa, kadib waxaa ka dabageynaysaa habaa ka dabageynaysaa. markasta oo soo istaajinayso oo kasoo bixinaysa time outka waa inaa habaa siisid, yacni waa ka heshiina wixii hore. marka badanaa anaka as hooyooyin haddaan nahnay ruulalka haddaa u sameyna nacala tiradaa ka badinaa. tirada hortaa ka badin, wax yaree 1 2 3 4 camal ka dhig oo yar oo cunug uu fahmi karo, tartiib tartiiba ugu darso doonaa. midda kale oo aad nooga dhib badan waxaa waa ruulalkaa sameyn inaa anag haddana jibino oo raacin. cunugay waa mashquulsantaa, darow kugu sameynaa, meeshii looga talagalay inaan fadhiisiino waa iska dhaafeenaasa maadaama aa iska mashquulsanan. marka insha allah aad iyo aad ruulkaa samaysid iyo sharcigaa dejisatid inaa raacid isku day. midda kale habeen kasta waxaa sameynaysaa markaa lasii saaxanayo, waxaa u sharaxaysaa maanta waad fiicneed. hadduu maanta oo dhan oo xumaa hal shay uu ku fiicnaa, wixii xumaantii dhan waa ka iloobaysaa, halku ma u sheegaysa, ma soo xasuusinaysa. halkii shay oo maanta uu ku fiicnaay aa soo qaadaysaa. maanta heblow sidaasaa samaysay ma og tahay, aadaan kuugu faraxsana. halkaasaa waxaa ka dhigaysaa wax weyn. marka waxay noqonaysaa wax uu haween walba uu ku xisaabtamo oo loo sheego, ama maalintii inaa iska shaqaysaa laga yaabo iska mashquulsan tahay oo loo sheego oo celebration lagu sameeyo halkaas wax. taas marka waxay sii kordhinaysaa inuu cunugaada hadalkaada muhiim oo ka dhigo, inuuna shaqaysto oo is ilaaliyo.
oo wanaaga oo sii kordhiyo. marka isbuuc ku dhamaado waxaa u sameynaysaa abaalmarin caruurta hadday yaryihiin hadday weyn yihiinba, especially hadday yaryihiin abaalmarin weyn wax weyn nagama rabaan, wax yarisay naga rabaan. abaalmarinta ugu fiican aan sameyn karno waxaa waaye inaan dhahno 30 daqiiqo ani aadi bis haddii caruur kale meesha ay joogaan whatever ay tahay ana aada isla fariisanayno, waxa adi dhahdo oo ifarta isla sameynayna sheeko marabta kaaga sheekay 30 daqiiqo asaga iyo adi bis, qof kale oo soo dhexgaleen hadii qolka isla geli kartiin, hadii luuqa isla whatever, hadii adi meel oo 30 daqiiqo ilaa saacada ka qayliso oo ku xisaabtamo cunugaas isbuuc walba oo hooyo la qaato ama aaba la qaato waa insha Allah saas u samaysid waa wax fiican. waxaa kale oo wax yar oo iska jecel yahay jirta laga yaabaa aad dhihi kartaa dalbo haye isbuuc uu noo dhamaaday intaanu wanaagaas samaysay adoo wixii oo xumaay ah ka reebaysid wanaagii oo xisaabe sabti saasa samays axad saana samays nin saana samays maantana waa maalinta lagu abaalmarinaa wax dalbo, wax weyn ma dalbanaya, hal xabo chocolate in iska dalbadaana laga yaabaa. marka intiina u samee haka balanta ka qaadi ha ugu bixin inta soo barawe hadday kuu shaqeyso ila soo socodsii, haddayna kuu shaqeynin insha Allah luuq iga soo wac. haddaa u baahan tahay ruulalka iyo wax sharciyada loo dejiyo waa kula sameynaa insha Allah ila soo xiriir. haddii laakiin ay kuu shaqeysay oo intaa samee ku dhaw yaa samaysid ay kuu shaqeysay walaalaha la soo sheer garay insha Allah inta saasa sameeyay oo ii shaqeysay. waxaa kaloo kula talinayaa cunug 5 sano markuu jiro ilmo caruur badan si u badiin 7 jir markay gaaraan ama madax adeegga saaid ugu sii bataa. marka intuu hadda 5 jiro iska qabo oo ruulalka iska bar oo hadalkaada muhiim inuu yahay hadda iska bar. takala hadhow marka 7 kugu gaaro waxaa waaye waa aad aan isku madaxa isla galaysin.